السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta Soomaaliyeed waan idin wada salaamayaa kulligiin meel kasta oo joogtaan dal iyo dibad. Soomaaliya ha noqoto oo wadankii hooyo ah, Somaliland ha noqoto, Soomaalida galbeed ha noqoto, Jabuuti ha noqoto, Soomaalida NFD ha noqoto, Soomaalida dibadda joogta ha noqoto iyo qurbaha. Dhammaan waan idin wada salaamayaa. waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barako iyo bashbash iyo wanaag ayaan idin rajaynayaa. walaalayaal waxaan idin leeyahay oon idinku baraarujinayaa, meel kasto aynu joogno aynu ku nool nahay Soomaali haddaan nahay ummad fiican baynu nahay, ummad diintooda ku fiican ayaynu nahay. meel kastaba waxaynu geynaa diinta ilaahay iyo shicaarka muslimiinta iyo dhaqanka muslimiinta ayaan geynaa. xagga muuqaalka sidaasaynu ka nahay, laakiin haddana in badan oo Soomaali ah oo magaca inala wadaagta ayaa magacii inaga kharibaya. heeso iyo waxyaabo iyo khaladaad fara badan ayay mar walba la yimaadaan. waxaa laga rabaa qofka muslimkiihi daahirkiisa iyo inuu iswaafaqo, qalbigiisu inuu iswaafaqaa laga rabaa, ilaahayna inuu kaga cabsadaa la rabaa meel kasta uu joogo. waxaan idinku baraarujinayaa naftaydii iyo naftiinaba, meel kasto aynu joogno in la inoo soo jira ilaahay baa garanaya. xanuunna adduunka kusoo batay aad garanaysaan, oo qofkii aynu jeclayn oy sooraan, ninkii aynu aadka u jeclayn aynu u dhegaysan jirnay hadalladiisii iyo riwaayadihiisii xikmadda xambaarsanaa iyo wadaniyadda xambaarsanaa aynu aad u jeclayn, oo stressku markuu aynu dareenna aynu aad u dhegaysan jirnay aaway xaguu ku dambeeyey. xanuun badan baa qabtay, ma waqti dheer buu xanuunsaday, ma waqti dheer baa la hayay? maya, walaalkeen waxaynu ku weynay muddo kooban gudaheed. isagoo inoo dhigayay riwaayado bishii Ramadaan wax yar ka hor ayuu haddana geeri iyo qabri ayuu maanta ku jiraa. marka waxaa laynaga rabaa in laynoo soo jira ma garanayno. away gabadhii fanaanada ahayd ee ku geeriyootay Muqdisho maalin dhoweyd, ayadoo oo ku tala gashan xaflad inay qabsato, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dhowr beri kadib way geeriyootay. away kuwii kale aynu garanayno, Nkrumah iyo dadkii waaweynaa aynu garanayno away ee waqtiga dhow wada geeriyooday. away sheekhyadii dhimanayay, sheekh Baaruud Gurxan oo kale iyo raggii noocaas oo kale ahaa. bal fiiriya, waxaa laynaga rabaa walaalayaal in la inoo soo jira ma garanayna, mar walba inaynu ku tala gashanaano aakhiro, aynu xusuusnaano geeridu inay noo soo dhowdahay. ilaahay ha idin barakeeyo. intaasaan damcay inaan idinku baraarujiyo. wallahu aclam wa axkam.